السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي نيوت كحران باركا 252 هبين وناكسن وحد كسور باتان موقال عصوب أنك هل دون كوحد كبدا عقتا بارسلونا هدا جنالكا باركا 252 كعصوب تاي سبسكراب سارسي كسو غاران موقالين سو سعدا موقال كان شير دها ما سندين سو دوادا صاحبيال ددد توبراها كوحد كبدا عقتا بارسلونا رونالدو كومان ayaa sheegay Luis Suarez inuusan ku jirin qorshihiisa xilliyeedka soo socda kooxda ayaa jooji doonto qandaraaskiisa waxayna u badan tahay inuu si xor iskaga tagi doono kooxda kubadda cagta Barcelona. kooxda Barcelona ayaa loo sheegay inay bixiso 143 milyan euro haddii ay doonayso saxiixa xidiga Everton Richarlison waxaana sidaas qortay Mirror. tababaraha kooxda Barcelona Koeman ayaa doonayo inuu keeno xidig reer horan iyo kooxda Lyon Memphis Depay. xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Liverpool Wijnaldum ayaa u sheegay Liverpool inuu doonayo inuu ku biiro Barcelona xagaagan waxaana sidaas daabacday gool. Philippe Coutinho waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto koobka Champions League wuxuu ahaa kulankii ugu dambeeyay ee Bayern Munich haatan waxaan u socdaa Barcelona balse ma hubo inaan halkaas sii joogi doono. Philippe Coutinho ayaa kulankiisii u dambeeyay kooxda Bayern Munich ugu ciyaaray kulankii xalay ee finaalka ee wada ciyaareen kooxaha PSG iyo Bayern Munich. koobka Champions League waxaa ku guuleystay kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Coutinho ayaa u soo duuli doono magaalada Barcelona ee garoonka Camp Nou. ugu dambeyn De Jong iyo Van de Beek waa laba xidig xulka Holland ayaa marka laga yaabaa inay isku koox noqdaan. Van de Beek waa mid ka mid ah daayarta tayada leh ee ku sugan kooxda kubadda cagta Ajax. qodobada caawa aan ku soo qaadanay wararka suuqa kaliibsiga aragtidaada waad ka soo dhiibi kartaa taayare waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan inta muuqaalka iga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.